dowladda shisheeye ee gacmaha iyo ajnabi iyo beesha caalamka gacmaha nala soo galaan oo mas'uuliyadii annaga naloo xil saaray oo naloo idmaday ummado kale ay masiirkaasi qayb ka noqdaan marka runtii waxay ahayd horumar iyo guul kulligeen noo soo wada hoyatay madaxweyne inta aan shir ku bilaaban waxaa jiray hadallo la isku taagtaagay iyo kala aragti duwanaansho hogaamiyaasha ama madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay dowladda dhexe dhaliilo u soo jeedinayeen shir xataa waxaa jiray ka horreeyay oo iyagu ay ku qabsadeen baydhabo oo aan dowladda dhexe matalaad xoogan ku lahayn ama aysan ka qayb gelin khilaafaadkaas bannaanka u soo baxay oo mar ay dadku u arkayeen inay wiiqi karaan geedi socodka dowladnimada ama ay sidee uga siraad korteen oo ay idinku suurta gashay inaad ku xalisaan masala la dhameeyay oo hadda waxaad la dhigi kartaa waa dhammaada khilaafkaas waxa weeye waxyaabaha naloo doortay yaa waxay tahay inaan dadka siino hoggaan wanaagsan good leadershipku ma aha wax aniga gaar ahaan ii saaran mas-uuliyiintaasna iyaga naftigoodu qaybtooda leeyihiin marka in aan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danta guud aan ka hormarino wax walba yaan istusnay taasaana runtii keentay in aan iyadoo aan dad badan filaynin inaan ka hormarino maslaxadda shacabka iyo danta guud waxyaabaha yar karateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya haddii aad si kooban noogu sheegtid sidee ku soo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay safgaradka idin dhexmar adiga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia muxuu yahay horta alxamdulillah ilaaha mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yiraahdo amni security oo kaliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo prime minister Ethiopia Dr. Abiy oo ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal si loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku base garaysan is-ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay taas waxay ahayd bayska aasaaska wada hadalkeena horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security aan ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dowladaha dariska ah Ethiopia iyo Kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taaganahay meel fiican hadiiba annaga laga damci karo annagoo isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka oo dagaalkii sokeeyay iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed in rajana laga qabo oo dowladuhu ay aaminsan yihiin Soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala sameyn karo ganacsi xiriir ganacsi lala sameyn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii marka dib u fiiriso uu ku mareeyay dowladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayay Suudaan wuxuu kala hadlay Djibouti ugu horeeyay wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Kenya sidaas oo kale iyo wadamadii kale uu tay kulligood annaga marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay
in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn maxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekadahaasna anagu dhaqaalo ma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxa bilaabanaya markiiba hadii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alla cidii maal gashanaysa dekadaheena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika inay noqoto xeebaheena ay noqdaan xeebaha markab kasta oo soo maraya aaga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdama ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aaga ay maraan marka in annagu aan noqono ilaahina uu nagu abuuray meel strategic ah inaan noqono dal strategigiisa ka faa'iideysan kara oo uga faa'iideyn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan population aad fara badan 100 milyan 100 milyanna waxa ku xiga South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda dadkeena waxa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baayac mushtar u tagaan ilaa Koonfur Africa ilaa West Africa marka hadii aan u soo dhaweynay opportunity iyagoo dalkoodii jooga aan u keenay wax alla wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaheena Soomaaliya dhaqaalaha ganacsadeena ay u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas'uuliyad haddana saaran shalayna saarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arintaas mudan madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyay oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysaa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan aan isla soo marnay marka arintaas iyada maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Ethiopia ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxa kula tartamaya inuu tartan ma arko Djibouti dad waalehna weeye intaas oo idil yaa tartan kugu la jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ee kor u kacdo
in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragtidaasna waxa ku xiga farsamadaas waxa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisaya wixii jidad noocee ah yaa la sameyn matarin yaa la sameyn doonaa ma garat oo u kala goosha Afrika oo dhan waxa studigaas la sameynaya ama farsamadaas ay ku jira dhaqaale intee ballaceedu leeyahay waxa soo idil kadib yaa waxa la gaaray heshiis agreement wax la yiraahdo agreementigaasna waxa la horkeenaya baarlamaanka sharciyeynaya marka waa process dheer laakiin waxa la isku dhaafay vision wax la yiraahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dawladana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn dalkeenu wuxuu ku yaalaa meel Ilaahayna siiyay oo strategic ah dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay kalluun ayuu leeyahay macdan ayuu leeyahay xooluhu leeyahay beeru leeyahay macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaabkaasna wuxuu yahay dawladda federaalka ah weeye ka bacdina aan aragno waxa ay hayaan laga munaaqishoodo heshiis la gaaro sharci loo bedelo ma garat markaasi intaas markaas ku soo waxay ku soo dhamaanaysaa annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto aan qaadanaynaa wadaniyadu ma aha dagaal iyo qori iyo wax iska celin maaha wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqeyso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotismku mudan madaxweyne dhawaan waxaad booqatay wadanka Kenya oo aad hal maalin booqasho ah ku tagtay ka horna ay jirtay booqasho state visit ama booqasho rasmi aad ku tagtay wadanka Kenya sanadkii tagay adoo markaas xafiiska ku cusbay booqashadaadan maxay diiradda saaraysaa oo ay ku saabsaneen booqashadeedu waxay hal maalin oo xaqiiqatan degdeg ah ay ahayd arintaasina waxay ahayd arin ku wajahan arintii ahayd darbiga laga dhisay balad xaawo oo buuq ah oo ka dhacay alxamdulillaah markii la bilaabay dhismihii waa xiriirnay madaxweynaha Uhuru waxaan ku heshiinay in la joojiyo inta aniga isaga iska arkayno heshiiskii aan galnay oo hadda markii aan aragnay wuxuu ahaa in loo saaro guddigaasi ay ka shaqeeyaan daraasadna ay ka sameeyaan oo labada dhinac ah muddo 6 bilood daraasad ka sameeyaan daraasadaasna ay noo soo gudbiyaan sidii aan ka yeeli lahayn shacabkeena Soomaaliyeed oo deegaankaas degan iyo wixii arintaasi aan ka qaban lahayn marka tan waxa ka horeeyay guddi in la sameeyo guddigaasna ay noo soo gudbiyaan wixii ay arkeen mudan madaxweyne arinta isla balad xaawo aad hadda ka hadlaysay dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay oo bulshada qaarkood aad u muuqanaya inay kicinayaan oo ay leeyihiin dhulkii la qaadanaya maxaad macluumaad ah oo arintaas la xiriira oo aan ka ahayn in guddiga loo saaray oo aad bulshada la wadaagi kartaa oo arintaas la xiriira marka hore horta shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aamina dawladdiina dawladda aamina dawlad yaa doorateen oo idin matalaysa oo danihiina ka shaqeynaysa annagana waa naga go'an tahay inta aan joogno in aan danaha ummadda Soomaaliyeed aan wax walba ka hormarino marka waa xaqiiq dad dana siyaasadeed leh iyo shabaabka naftigooda yaa wax alla wixii dhaca ama wax alla wixii laga sameyn karo ka sameeya dood waalan oo dadka lagu jahwareerinayo lagu khaldaayo marka
arrintaasi guddiga waaya mudan madaxweyne arrinta ku saabsan Kenya intaanan ka bixin waxaa jiray muran ka naga dhaxeeya dalka Kenya oo la xiriira badda Soomaaliya marka oo hor yaala maxkamadda caalamiga ah arrintaas maxaa ka cusub oo hadda ka socda arrintaasi waa arrin annaga horteena bilaabatay haddana socota oo maxkamadda Hague maxkamadda caalamiga ah ee hortaala maantana dacwadeennii qayb ka mid ah loo gudbiyey taasna waxa weeye waa wax hortaala garsoorayaal labada dhinac dhageysanaya doodooda annagu waxaa noo qaabilsan loo yaro qareenno waaweyn yaa qaabilsan oo dacwadaas iyo doodaas hordhigaya taasaan u daynaya insha allah wixii ka soo baxana waa arkaynaa mudan madaxweyne intii aad joogtay Kenya oo waxaad ka qayb gashay munaasabad iscafis xiriir la lahayd oo siyaasiyiin badan oo Kenyan ah ay isku yimaadeen haba ugu weynaado Raila Odinga iyo madaxweynaha oo tartan adag u doorashada ku dhaxmaray Soomaaliya waxa ka jiray khilaaf waqti dheer soo jiray dad badan siyaasad ahaan ku dhaliila hogaankaaga dhaliila siyaasiyiin ah oo aan qarsan ama la gabada intaba madaxweynaha Kenya wuxuu mar kugula taliyay inaad kala Soomaaliduna ay sidan oo kale ay sameeyaan ma ku qorshaysan tahay inaad iyadoo Somali context laga dhigayo aad siyaasiyiinta Soomaalida ah ka aragtida duwan ama qaba fikirro kale inaad is aragtiin oo aad si hoose iyo si koraba bulshada Soomaaliyeed aad wada hadashiin oo aad isu soo dhawaatiin su'aal wanaagsan weeye annaga qaabkooda iyo qaabkeena waa ka kala yar duwannahay iyagu electionkoodu wuxuu gaaray inaysan is aqoonsan oo caalamku ay soo dhex galaan oo mar xitaa ay gaaraan laba madaxweyne in meesha looga dhawaaqo oo ilaa hadda markii ugu dambeysay xaaladooda ay aad u cakarneyd annagu keenu waa ka duwanaayo dee electionkeenu election cadow banaanka yaallo ahaa markii uu dhammaadayna waa tii annagu gacmahaas qabsannay oo caalamku ay runtii arkeen oo wadamo badan oo filayay Soomaaliya inaan aad u dambeeyno qiray inaan taaganahay meel aad u fiican oo waliba aan ka horeyno badankooda aan ka horeyno electionkeenu saas ku dhamaaday wixii ka dambeeyay electionka 2 bilood 3 bilood iyadoo la joogo waxaa bilowday wixii dhaqanka u ahaa Soomaaliya waana wax iska normal ah wax iska caadi ah weeye in Kenya lagu shiro oo la yiraahdo xukuumadda la ridaya oo mooshin baa laga keenaya waxay iska ahayd wax iska dhaqan ah oo iyadoo la sugayo aniga iyo prime ministerka inaan isqabanno muddo yar dhexdeeda haddana dawlad kale la dhiso oo haddana dawlad kale la dhiso marka alxamdulillah waxaan kuu sheegayaa dawladdu waa very stable waa u baahannahay dad wax naga sheega mucaarad waa u baahannahay iyagoo looga baahan naftooda inay noqdaan mucaarad wax dhisa haddii looga barto iyaga naftigooda dad iska qayliya oo dadku xitaa credibility-ga ka lumaya sumcaddana waa ka halaabaysaa marka waxa weeye wax hadda aan oran karo caqabado ah oo dawladda dhexdeeda haysta ma jiro saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadino cid alla ciddii aan qancin karno aan ku qancino inay dawladnimada nagala shaqeeyaan dalkeenu wuxuu maraya xaalad aad iyo aad u adag shabaab baan la dagaalaynaa dhaqaalaheenu weli ma soo kaban dalkii waa kala maqan yahay marka cid walba oo runtii aan ku tuhmeyno mas'uuliyad iyo aan ku tuhmeyno maslaxad waa ku khasbannahay inaan raadino oo aan la shaqeyno dowlad goboleedyada tii ugu dambeysay waxay ahayd Baydhabo cid walba oo runtii aan ku tuhmeyno ama qaba grievance qaba ama tabasho qaba waxaan isku dayaynaa inaan raadino iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan dad wadaniyiin ah oo dalka u danqanaya oo mas'uuliyad ku jirta waay mudan madaxweyne tukaraq deegaanka la yiraahdo waxaa dagaal ku dhaxmaray ciidamada isku hor fadhiyaan Somaliland iyo Puntland dawladdu door noocee ah ayay ka qaadatay si loo baajiyo dhiig kale inuu sii daato waxa weeye runtii waa nasiib darro waqtiga hadda aan ku jirno 27
8 sano ku dhowaad in weli dalkii uu dhiig bilaa macno ah oo runtii aan wanaagsanayn iyo conflict iyo colaad ay jirto waa wax runtii aad iyo aad looga xumaado waa arrintooda waa dhex galay waana la hadlaa si joogtaan ula hadlaa waana isku dayay inaan runtii wada hadal siiyo marmar waa ku guulaystay in xabad joojin la sameeyo in wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham labaduba waa soo dhoweeyeen laakiin nasiib daro xabad joojintii iyo wada hadalkii ma sii shaqaynin oo hadda waxaan ognahay inay dad Soomaaliyeed oo walaalo ah halkaasi ay ku nafwaayeen kuwa badanna ay dhaawac hadda yihiin waxaan ka codsanayaa ma u soo jeedinayaa ama aan ku baaqaya in ay wada hadlaan oo wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham si loo baajiyo dadkaas waalaha oo muslimiinta dhigooda mudan madaxweyne dhawaan waxaad waqti badan ku qaadatay wasaaradda gaashaandhigga oo aad si gaar ah ula nooleed oo maalmo badan la joogtay ciidamada xoogga muxuu ahaa ujeedka aad ka lahayd arrintaas iyada ah ujeedka wuxuu ahaa runtii priority-gana ama muhiimadeena koowaad waa amniga iyo sidii shabaab dalkaan uga qaban lahayn dalkaana nabad aan ugu soo dabaali lahayn taasna waxaa keeni kara waxay tahay ciidan adag oo discibliin fiican leh aqoontiisu dhisan tahay tababar fiican leh qalab fiicanna haysta ama agab fiican haysta si aan taasi aan u hubsado aan u xaqiiqsado inaan meesha tago aan ogaado xaaladday ku nool yihiin iyo maxaa yeele waxaan ku dhex jirnaa waktigii isdiyaarinta iyo ishabeynta ama diyaar garowga howlgallada aan doonayno inaan bilaawno hadduu eebba yidhaahdo aan ogaado siday ay u diyaarsan yihiin ciidankeenna tiro ahaan iyo tayo ahaanba waxaa ii soo baxday marka su-aashaada su-aal fiican waxaa ii soo baxday ciidan runtii geesiyiina oo diyaar waa dalkooda inay u dhintaan laakiin maamulka uu ka yara qariban yahay taasna runtii intaan meesha joogaan waxaan ka shaqeynay sidii aan maamulka u sixi lahayn haddana maamulkaas sixidiisu waa wax socda wax hal mar ah maaha si aan tayada ciidanka aan kor ugu qaadno ciidanka noo diyaar garaysan oo haddii aan doonayno howlgal inaan galnana aan xaqiiqsano kuwa howlgabka noqon kara ama kuwa dhaawaca ahna waxaa jira hadda sharci xaqsiinta ah oo hor yaalla baarlamaanka oo 5 bilood 6 bilood ka hor aan horgeynay sharcigaasi waxaan rajaynaynaa in la ansixiyo oo uu dhaqan galo si dadka howlgabka ah cimriga ah ama dadka dhaawaca ah in iyo agoonta in aan dhankaas u weecinno ciidanka markaa shaqayn kara oo xayiga ah oo aan u baahannahay inaan howlgelino markaasi aan ku talagalno ma ku laabanaysaa wasaaradda gaashaandhigga mar kale aad iyo aad waa ku noqon doonaa insha allah hawshii weli way socotaa waa ku noqonaynaa insha allah dulahi mudan madaxweyne maxkamadda sare ee waddanka ayaa berdhoweed isbeddel ka jiray oo la magacaabay guddoomiye maxkamad sare waxaa kuugu jiray ballanqaadyadaadii inaad garsoorka shaqo badan ka qaban doontid ilaa hadda maxaad dhihi kartaa waa laga qabtay dhinaca garsoorka haddii aan su-aal kale ku darana guddiga adeega garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayaa dad badan wax isweydiinayaan goorta la dhisayo oo ay functional noqon doonaan waa jeclaan lahayn inaan horay aan ugu dhaqaaqno laakiin waxaan raadinaynay oo aan inaan u taabagalno inaan ogaano xaqiiqda dhabta ah ee cadaaladda hay-adda maxaan ku rahdaa garsoorka meesha waxa ka jira culayska jira cabashada dadka ay qabaan ma wax la iska sheegayaa mise waa wax dhaba iyada nafteeda markaa qofka bedelayso ama qof cusub keenayso meel waa inaad cadaalad u samayso aada hubsato xaqiiqda dadka cabanaya ma dad ku guul dareystay garsoorka miya mise waxa weeye cabashadu waa cabasho dhab ah runtii waxay nagu qaadatay daraasad dheer iyo nagu qaadatay inaan ogaano khaldaadka iyo culayska iyo dhibka ka jira meeshaas waxaa noo soo baxday inaan
degdeg wax uga qabanno qaybtii ugu horreysay waa sameynay oo dee waa magacawnay haddana waxaan ka shaqeynaynaa garsoorayaasha hadda jooga yaa loo baahan yahay yaa shaqadiisa qabsado oo cabasho dadku aysan ka qabin yaa cabashadoodu badan tahay iyada naftigeeda waxaa laga rabaa guddoomiyaha maxkamadda sare inuu u gudagalo garsoorayaasha naftooda yaa shaqeeyay yaana shaqayn adeega garsoorka waa ku tala jirnaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan yaan 9 xubnood oo golaha adeega garsoorka aan isugu aadin doonaa insha allah mudan madaxweyne al-shabaab waxaad marar hore ugu baaqday inay hub ka dhigaan inay isa soo dhiibaan gaar ahaan si gaar ah waxaad uga hadashay dhalinyarada la marin habaabiye iyagu aan hogaamada sare ka ahayn al-shabaab laakiin dagaalka loo adeegsado baaqaagaas cafiskun uu ku jiray ciddii isa soo dhiibta ma loo dhaga nuglaaday maxaa natiijo ah oo ka soo baxay mar walba waxaan leenahay qolooyinkan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in la khalday oo la marin habaabiyey dad Soomaaliyeed weeye waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxay leynayaan ama ay dilayaan ama isku qarxinayaan waa shacabkoodii walaalahood hooyooyinkood weeye mar walbana u sheegnaa inay ka waantoobaan ka soo baxaan diinta islaamka ma qabto qof bini aadan in la dilo ma qabto in la isdilo oo qofku isqarxiyo ma qabto diin islaam ma aha caqiida saxa ma aha mar walba waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay ka soo noqdaan qaybna ka noqdaan runtii dhismaha dalkooda iyo horumarkooda waa soo dhaweynaynaa waxaan siinaynaa rehabilitation wax la yiraahdaan siinaynaa degaan yaan siinaynaa kii waxbarasho u baahan inaan waxbarasho u raadino ama aan siino waxbarasho kii shaqo u baahan inaan u diyaarino oo aan u tababarno shaqada ay qaban karaan marka waxaan aaminsanahay haddii dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada aan bilaawno hadduu ilaaha yiraahdo inaan arki doonno isbeddel dhankooda ku dhaca iyo kuwo badanoo ka yimaada oo ka waantooba oo hub ka dhiga oo isu soo dhiiba insha allah hadduu ilaaha yiraahdo mudan madaxweyne waxaa lagugu xantaa inaad marka ay waddanka crisis ka jiraan ama qadiyado u baahan in madaxweynuhu uu ka hadlo ama uu codkiisa la maqlo ay ka jiraan waddanka inaad ka aamusto oo aad waqti dheer ay qaadato in warkaaga la maqlo ama aad bulshada ka qanciso arrin u baahan inaad adigu ka hadasho ilaahay dadku ay isweydiiyaan madaxweynuhu muu hadlo marka maxaad uga jawaabaysaa fahamka noocaas ee bulshada dhexdeeda ka jira madaxweynuhu waxba kama bilowdaan way ku dhamaadaan madaxweynuhu ma hor ordi karo shaqada maxaa yeelay haddii isagu uu hor ordo oo wax laabaan xagee lagu noqonaya macnaheedu waxay tahay madaxweynaha wax uu leeyahay oo meesha wax ka bilowdaan waxay tahay magacaabista prime ministerka macnaheedu waxay tahay prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha yaa mas'uuliyadda xukuumadda iska leh prime ministerku waxaa la shaqeeya wasiiro oo loo baahan yahay shaqada naftigeeda inuu u delegate gareeyo oo iyagu ay hawsha ay ka xigsadaan wasiiradana waxaa laga rabaa agaasimayaasha guud inay ka xigsadaan ilaa meesha ugu hooseysa ee madaxa qaybta uu hawsha ay ka bilaabato meesha hawsha ay ka bilaabato marka waa dhaqan cusub aan horay aanan dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya aan horay looga baran laakiin waa sida saxa ah madaxweynuhu waa meesha ugu dambaysa oo la tagayo markeedu macnaheedu waxay tahay inaan aruuriyo xog inaan xaqiiqada ogaado meesha wax ka khaldan yihiin iyo meesha loo baahan yahay in wax laga saxo talooyin badanna aan geliyo kadib iyadoo la diyaarsan yahay anigu aan xalkii keeno marka alxamdulilah ra'iisul wasaare wanaagsan oo aan ku kalsoonahay ayaa shaqeeya isagana dee wuxuu keenay maxaan ku raahdaa wasiiro qof walba waxaa laga rabaa shaqadiisa ee loo idmaday ee loo xil saaray oo mas-uuliyadda ka saaran inay gutaan mudan madaxweyne ugu dambeyntii 2020 ama 2021 xilligaas oo ku beegan marka ay tahay in dalka doorashooyin ka dhacaan oo maaragtay dadku doorasho cod iyo qof ah ay aadaan maxaad filaysaa ama xaalad noocee ah ayaad saadaalinaysaa inuu dalku ku sugnaan doono marka shaqooyinkan hadda aad sheegtay
la fuliyo ama ay hirgalaan shaqooyinka hadda aan bilownay runtii waqti fiican yaan bilownay oo aan wax kasta aan qorsheyn karno dadka aan la tashan karno aqoon-yahanada aan ka qayb gelin karno hawshan hadday noqoto qaabka electionka u dhici doono dhammaystirka dastuurka marka waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan bilownay sidaa aan u soconno haddii aan ku wadno inaan ku tegeyno hadduu eebbe yidhaahdo doorasho qof iyo codkiisa ah qof iyo cod ah shacabka Soomaaliyeed aan dib ugu celin doono talada mar dambana iyagu aysan sheegan karin in wax laga hadlayay maxaa yeelay iyagaa iskala go'aankii iyagaa dooranaya qofka ay rabaan iyagaa keenaya leadershipka iyo nooca ay rabaan marka in aan gaarsiino awooddii shacabka sida caalamka inta badan ay yeelaan iyagu keenaan marka qofkay isleeyihiin waa qof soomaalinimadiisa wadanimadiisu fiican tahay waa qof aamin ah oo ammaanada ummadda loogu dhiibo adkeeya qof shaqadii yaqaana qof khibraddii leh iyagaa laga rabaa inay iyagu doortaan qofka ay rabaan marka mas-uuliyadana saaran waxay tahay hadda inaan keenno qaabka ugu fiican hadduu ilaah yidhaahdo marka qorooyinka farsamada iyo technical teamka ay ka shaqeeyaan oo ay la tashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay soo bandhigi doonaan sida ugu fiican yaan oran iyaga kaliya meesha waxaa jira guddi madax bannaan oo doorashooyinka jira oo iyagu naftigoodu iyagaa iska leh hawshan oo waa madax bannaan yihiin inaan annaga aan fakarkii keenno annagoo la tashanayna iyagoo la tashanaya guddigaasi farsamo iyagoo la tashanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo baarlamaanka iyagoo la tashanaya in la keeno qaabka ugu fiican oo ugu habboon oo Soomaalidu ay ku geli karaan doorasho ama election ku geli karaan mudan madaxweyne aad ayaad ugu mahadsan tahay waqtigaaga waa kaaga mahad celinaynaa waraysigan aad na siisay guud ahaan